السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي قالوا كسودو هذا فيديو عصوم فضل الله عصوم سودو. ما أنت حق له صعدا. ما أنت واحد سودو هنا عبد الرحمن عبد الشكور وسام مدحوينها مستقبلك. صح. سودو. هذه. سودو هنا مدحوينها مستقبلك عبد الرحمن عبد الشكور. أيه. فدق وناكسن. هذه. رجع يكو هيلن. هذه. سودو. ما شاء الله هذه هم 60 أصحابتي غالية. هذا waxaa u soconaa asxaabta waxaa u soconaa xafladda meeshii ka dhacaysay marka insha Allah taala socdo marka waxay ku soo bilaabeen nidaam federaal ah oo ay isteediyada xoogga sida loo qabsaday isticmaalka u qabsaday sida ixtiraalka u dhacay sida gumaysiga ugu yimid sida dad beeraley oo muslim ay u hayeen iyo siday maanta yihiin waa meelaad wax badan runtii ka baran kartaan xataa kuwiina teknolojiyada iyo IT iyo businesska iyo xataa kuwa socotada ah oo waxba baranin waa dal aad wax badan ka baran kartaan oo annaga xageena ah oo aqoonta taalo Malaysia kaliya ma aha mid teknolojiyada iyo jaamacadaha kaliya inaad tagtaan laakiin taariikhdeeda iyo dastuurkeeda iyo hanaankeeda siyaasiga say u soo gudbeen trajectory-ga u soo mareen waa inaan aan fiirinay u baahan tahay adduunka hadeertaan sababtoo ah sida hadda annaga aan nool nahay Soomaali hadaan nahay adduunka hadda ma la iska yeelayo adduunka dawlad la'aan lama yeelayo dad beela ah oo qabaa'ilna adduunka hadda lama yeelayo waxa la yiraahdaa Westphalia kadib nimanka reer galbeedkaas isku dagaalayeen diimay 30 sano socday 1628 ku heshiiyeen nidaamka nation state ka la yiraahdo oo inaan la isfara gashan dawlad la dhiso qaran in la istaajiyo oo laga baxo nidaamka empire-ka ahayo wadan inuu ku duulo wadamo kale asaga oo qabsado ay ka heshiiyeen marka adduunka hadda nidaama degsan oo qaramada midoobay sal u yahay oo security council-ka base u yahay order-ka marka hadii aad ku cayaarto international ugu sameeyay cid ku warsanaysan ma laha sababtoo ah lama ogola soo ma arkin Europe dadka taga yaqaano ciyaalka markii ay islaamaha ama family-ka markii ilmahooda hana waayaan dawladda soo fargashay ilmaha waa laga qaataa haday laakiin ilmahooda dhaqdaan cid u fargalaysa ma laha adduunka order-kiisa saas waa hadaa ku cayaarto adduunka order-kiisa waa lagu imaanaya gacmaha lagu qabanaya ma adduun la iska kaadeynayo ma aha sababtoo adduunku uu istaameeyo hadda waxa muqdisho ka dhacaya Washington wax ka dhacaya ama London ay saameyn ku yeelanayaan oo waa istaameeyo adduunka hadeertaan isku socodka iyo teknolojiyada iyo travelka iyo waxa dhan sahlan marka saas daraadeed la isma dhaafayo annaga marka waxaan rabnaa maadaama dad aqoon-yahan u badan tihiin xoogiina in aad fiirisaan ama aad discussion ka yeelataan ama aad doodo laga furo maxay caqabadaha annaga hortaagan inaan nation noqono inaan qaran noqono maxaan hortaagan hadda waxa soo socota sanad guuridii lixdamaad Soomaaliya intaan hortanahay 30 sano dawladda ahayn 30 sano dawlad macna leh ma haysanin ama ma bajistaan dhigi karaaba sidii definition-ka dawlad markii la yiraahdo wali dawlad ma jirto 30 marka umrigeena siyaasadeed ee dawladnimo waa kala baran yahay waa 30 maxaa marka annaga 30 kaas sano on maxaa caqabadaha hortaagan maxay yihiin waxaan rabaa saddex caqabadood inaad discussion-kiina ama doodihiina inaad ku darsataan oo aad focus ka saartaan aan rabaa caqabada koowaad waxa waaye waana saddex annaga asaas dhaqankeenu ah waa qabiilka iyo diinta iyo wadanka saddexdaas waaye saddexdaba si qalad ah ay noo galeen maadaama ay saddexdu si qalad noo galeen waxa aan ka kicilanahay waa saddexdaas markay qalad noo galeen oo si qalad aan u fahanay waxaa naga soo baxay dad nooc kale ta inaan noqono annaga dhan adduunkana halis ku ah gobolka ay degan yihiin halis ku ah haddii aan fiirin hadda fahamka qaldan ee diinta markii la fiiriyo hadda ertaan dhibaatada naga haysata oo ah waxa ugu badan oo hadda ninka ku dilaya oo ku dhahaaya haddana waxaan ku dilaa ilaahay dartiis haddaa dhimatana waxaa tahay shahiida jannada galaysa adiga haddaa isdilnana waa isla wada shahiidayna xadiiskan wuxuu ahay haddii muslim dilo macnihi ama muslimka dhiigiisa waa ka xaaraan naftiisa waa ka xaaraan hantidiisana waa ka xaaraan diin waxaa fahamkeeda la keenay la leeyahay haddaan ku dilo anigana jannaan gela adiga dhintana jannaa gele marka waa faham qaldan oo diinadu xaguu ka yimid marka meeshuu ka yimid inay sheegaan rabaa wuxuu ka yimid laba arrin oo ka yimid midna si siyaasadeysan u yimid midna si daacad ah oo faham qaldan oo ku yimid fahamkii qaldan oo ku yimid maxaa waaye diinteena waxay leedahay waxaan isbedelin oo culimadu waxay dhahaan asal iyo wax isbedela oo mutaqayyira oo wuxuu isla bedelaa duruufaha waqtiga taariikhda nolosha dadka bay'adu isla bedelaa
marka labadaas inay kala saaran yihiin waa fundamental si kale haddoo loo dhigo waxna waa waxyigii ilaahay nagu soo dejiyey oo nabigeena kusoo dejiyey oo risaaladii uuna soo gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam marka islaamka marka sidiisaba markuu siyaasadii xukunka ka hadlaya wuxuu ka hadlaa mabaadi iyo qiyam uu ka hadlaa مثلا wuxuu ka hadlaa xorriyadda cadaaladda sinaanta dadka inay sinan yihiin wuxuu ka hadlaa in maalka uu yahay hanti dadweyne ay tahay hantida aan la qaadan karin in qofka xilka loo dhiibaa quwo iyo ammaano loogu dhiibo oo la fiiriyo kartidiisa iyo ammaanadiisa la fiiriyo in maaragtay dadka aanan la dulminin oo dulamka uu xaaraan yahay mabaadi uu leeyahay islaamka dadka muslimiinta marka waxaa loo dhaafaa moodalka ay mabaadidaas ku fulinayaan ijtihaadkooda nololeeda loo daayaa رسول النبي حتى مركو دمنا عليه الصلاة والسلام صحابة ساس أحمرتو وأركتيها الآكنتو وقاب كاللو فلونا يو مبادئ إسلام كسيد اللو فلونا يو وأرين فرسمو وأرين بروسيسا أم إجراءات وأرين الدنيا وأرين أباهن إن ماركتي لقا وضح الله وفلون تيدا وحلي سيقو قادي أباهن تاي meeshaas marka qalada ka yimid qaladkaasna wuxuu yahay in dad ayaga nooca ay rabaan oo shareecada waliba ayagoo ku qaldayo historical context waxa la yiraahdo dhacdooyinkii taariikhi islaamka soo maray yee waxay ku leeyihiin dhacdooyinkaana diintii ah mana ah dhacdooyinkaana ma aha marka diintii ma aha diinta waa mabaadida iyo qiyamka marka fahamkaas qaldan wuxuu keenay inaad dhibaato naga qabsato arrintii ayada ahayd midda labaad waxa waaye oo dhibaatada nagu haysa waa oo xagga diintana ka timid loolan siyaasadeed oo geopolitics oo adduunka la haystaa dad inta la dhexgeliyo muslimiin ah yaa si qalad loo isticmaalay tusaale maxaa ah waa dagaalkii u dhaxeeyay qaboobaa ee Sofiyeetka u dhaxeeyay Mareykanka saa ogtiin dagaalka Afghanistan oo jihadka Afghanistan la dhihi jiray 12 sano 20 sano ku dhawaad socday dad badan oo muslimiin ah ka qayb galay dawladaha iska kaashaday midna ay bixiso tababarka dhulkeeda lagu tababarto Pakistan ay ahayd midna dhaqaalaha ay bixiso fundinka midna hubka ay keento Mareykankana hubka uu keenayay Sacuudigana wuxuu bixinayay fundinka saddexdaas waxay ku heshiiyeen marka in Sofiyeetka nidaamkii shuuciga ahay loo siibo jiridada loo bixiyo dhalinyarada marka waa la isticmaalay dagaalkii la geliyay maadaama ayaga niyad fiican ay lahaayeen oo dad jihaad u socday ahaayeen waa lagu guray meesha facilitation waa loo sameeyay wax yaalo waayo waa akhri kartaan dad mutacalimiinati hada baaritaan sameeysan in wasiirka defensiga ahaa jiray Mareykanka Robert Gates la yiraahdo yaa mas'uul ka ahay malafka America dadka xigmatiyaan iyo dadka madaxda u ahaa markaas Burhanuddin Rabbani iyo Ahmed Shah Mas'uudi wixii mujaahidiinta hogaamin jiray Afghanistan White House ka Reagan ku qaabili jiray dad la qaabilo oo la og yahay oo jihadkooda laga warqabo ahaa oo hubkana la siiyo si Sofiyeetka loogu dumiyo dhalinyaradaas marka meel kasta ka tageen annaga ninka shabaabka asaasay Ibrahim Haji Aadan Afghan Mareykanku ka tagay Afghanistan ku jihaada dagaal uga jiray markaasa ka bacdi Soomaaliya imaa doona waa taariikh ina ogaano loo baahan yahay marka maxaa dhacay mashruuci markuu fashilmay mashruuci markuu dhamaadaan rabaa oo Sofiyeetkii meeshii laga saaray Mareykankii iyo Pakistan waa la wada fadhiisay dawladii waxa la yiri dadkan sayala kumanaan kun dhalinyaro ah tababaran mujaahidiin ah farta ka xiran wada dagaalka yaqaan haday dawladoodii ku noqdaan dawladoodii afgambinayaan meesha dhibaato ka iimaanaysa leeyahay sayelina waxa la yiraahdaa la karantiilo nin walba wadankiisa loo diido sharciyada iyo jinsiyadana ha laga wada qaato ayagana maxay sameeyeen waxay dhahaan saanya noo galay America Soomaa dawladihiisa noo galay America weyn marka America waa in anaga bariga dhexe iyo dunida islaamka aan ka bixinaa oo dagaal aan ku qaadnaa dagaalka marka ugu dhaxeeyay nimanka al-qaacida la yiraahdo Amerikaanka halkaas oo asaaskiisii ka yimid Ibrahim marka la soo diraayo inuu xarakadan iyo jihadka Soomaaliya ka sameeyo loo soo diray waxaan godane arkaysaan iyo dhalinyarada kale dhanbo dan aadan ceyro ku waxaasoo asaas talaale Ibrahim talaale marka waa dagaal dad victim u ah geopolitics adduunka la isku haysto waaye waa sida hadda Iran iyo Shiicada iyo Sunnada iyo Mareykanka la isku haysto waa hadeertan u jeediyay koonol sida hadda ugu jeediyay waaye oo ninka hadda maal la dilaayay wuxuu ahaa ninka Iran uga mas'uula inuu Shiicada ku talaalo deegaanada ay dadka Sunnada degan yihiin si awoodda Shiicada ama Iran loo xoojiyo oo ogtiin Lebanon Syria Iraq Yemen afar dawladood iyo waxay kulaalayaan wadanka la yiraahdo Oman inta marka dhalinyaradan
waxaan rabaa baxrayn la yidhaahdo dhalinyaradan marka arkaysid waa dhalinyaro victim u ah ama dhibanayaal u ah dagaal geopolitics ah oo adduunka u dhexeeya hal maraan lagu soo yaaciyey ayagana waxay dhaheen waxaan aragnaa waa maadaama reerahoodii loo diiday inay deegaanadoodii ku noqdaan dalalkoodii loo diiday inay faamiladoodii ku noqdaan ayagana waxay go-aan ku gaareen waxay arkaan inay qarxiyaan ayagana hore u dhintaan maadaama nolol ee adduunka aysan ka haysanin marka waa dad saas waaye dadka annaga haddana dhex degan oo arkaysaan oo caqabadda nagu ah midda labaad ee caqabadda taas waa tii dhinaca fahamka oo diinta xaggeeda naga haysta waaye wayna nala socon doontaa haddaanan daawo loo helin oo si dhaba looga wada hadal oo dadku aysan ka wada doodin caqabadahan na haysta saasay u oolayaan wiilka dhahaya haddaa dhimatane jannaa gelaysa anna waa kuu shahiidaa jannaan kula gelaya waa noo joogayaan haddaanan xal loo helin oo xal loo helin qaybta labaad waxaa waaye waa qabyaaladda annaga hadda waxaan rabnaa inaan qabaa'il ahaan adduunkana ma ogolo qabiilka oo qabiil lama ahaa karo sababto qabiil nation state ma noqon karo qabiil qaran ma noqon karo marka see marka aan rabnaa aan u noqono qaran caqabaddan hortaagan marka maxaa waaye qabiilo diraan nahay dowladdoodii dumiyey inay dib u dhistaan rabaa marka halka wuxuu meeshaas nalka raba waxaa waaye inaanan noqonin dad caqabad ku ah dhismaha dowladnimadooda see u noqonaynin waxa markii hore dowladdii aan isaga duminaa meesha ka saaraynaa oo ah inuu sharciga sarreeyo dowladdii maxaa dumiyey dowladdii waxaa dumiyey sharcigii iyo qofkii as dhex galay qofka madaxda dowladda ama madaxweyne ha noqdo ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama baarlamaan qof ku jira ha noqdo ama qof maaragtay taliyo ciidan ha noqdo qofkiisa sharciga gacantiisa ku qaadanaya asagaa wuxuu ahaa sharcigu asaga kama baxsanayn sharciga adiga asaga looma sinayn asaga ahaa sharciga waxa asaga oo dhaho maadaama government officer uu yahay level kor ma ahaado asagaa dowladdii ahaa waxaa meeshaas ka baxay marka sharcigii inuu sarreeyo waxaa ka baxay xorriyaddii waxaa ka baxday sarreyntii iyo dastuurkii ka baxay dadkii marka maxay noqdeen qof walba waxay fikir ku noqotay xorriyad la-aan iyo dowlad la-aan ayaa meeshii aan kusoo dhacnay waa la kala baxay qabaa'ilaa la noqday qolobaba deegaankeedii ku noqotay administration iyada ay leedahay samaysatay see marka maamulada laysku keenaa nidaamkii dalka inaan marnaa u baahannahay waa meesha aan ku celcelino is-ogol iyo isla guddoon annaga haddii oo muwaafaqa loo baahan yahay nimankaana uga daysanaynaa meesha ka yimaada 50 sano ku hore joognaa annaga oo ah wilaayado ama status kala go'an oo u baahan inay muwaafaqo helaan si ay dowladda xaq u dhistaan muwaafaqada marka maxay ku imaanaysaa saa annaga dhahaynay is-ogol iyo taladoo la isla guddoomay ku imaanaysaa marka qabiilka caqabadda oo nagu yahay waa laga gudbi karaa haddii si cilmiyo aragti iyo aqoon ah aan uga hadalno mid saddexaadna maxaa waaye waa waddanka oon wada leenna annaga oo ama arrinta la yidhahdo wadaniyadda hadda loo bixiyey wadaniyadda erey fiican waaye waxa aan sheegaya dhan wax xun ma aha qabiilkana waa isku qur-aankaaba sheegay inaan isku aqoonsano waddanka waa wada leenahay diinta waa islaamkeennii laakiin markii faham qaldan laga bixiyo oo dhinac qalada loo leexiyo oo wadaniyadda ay iska noqoto halkudhigyo oo ah qofka anaa wadaniya waa kaa wadanisanahay waxaan kaa wadanisanahay intaan qofka aflagaadeeyo ama intaan aniga aan idhaahdo oo wadaniyaddii aysan aqoon iyo xigmad iyo aragti aysan ku dhisnayn oo ficil aysan ahayn oo qofkii ficil u bedeli karin waayo waxa oo dhibaatada ah maandood waxaan dhageystay shalay maahan mise xalay hal saaci bar interview laga qaaday qalbi dhagax runtii calo xanuunu lahaa sida loo qabtay waxaasoo dhan marka iyo sida loo xareeyey iyo sida Ethiopia gacanteeda loo geliyey marka ani waxa igu daran wuxuu yiri maalin maalmaha kamid ah ii imaadeen nimankii hayay wad dhageystay intiina badan oo marayna markaas waxay ugu yiraahdeen madaxweynaha rab inuu ku arko shirkii African Union ku loogu soo horay saacado fara badan nala soo kulmo ardayda iyo jaaliyadda Soomaaliya waddankan aad loogu soo dhaweynaya madaxweyne soo dhawo baan kulanahay mar walba dalkaagii dalkii la qaadisay waxaan ku soo dhaweynayaa Dr. Maxamed Siyaasi oo ah isku soo dibirida barnaamijka quruxda badan ahna gudoomiyaha jaaliyadda gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed waddanka Malaysia soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم دمان ومحزنتين دمانتين مقام والباد كفر لسان
waad u jeedaan maanta dowladdeennii Soomaaliya oo aan ka filaynay inay dalkeena hoggaanka u qabato xafladihii waddanka banaankiisa ayagoo aan noo hayn wax ixtiraama safaaradda Maleeshiya waxa ka socda aad u jeedaan ardaydii lagu dhigaayo fiisooyinka arday walbo Maleeshiya waxaa laga qaadaa $600 marka uu u baahan yahay inuu qaato warqadda dasqiisinta loo suubinayo marka dowladda aan ka filayno inay horumar noo suubiso waa midaas waana ku fashilantay annaga haddaan nahay ardayda Soomaaliyeed jaaliyadda Soomaaliyeed dalka Maleeshiya waxaan la jirnaa wadajir wadajirkan laba gacmood wax ku qaban karaane aan isweeshano walaalayaal aan wadajirno walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullahi asxaabta qaliga saa igi sheego maanta waxaan soo aadnay xaflad uu qabanayo gudoomiyaha wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur xafladii oo noo socoto oo meel dhex noo maraysa ayaa waxaa xafladii hal mar imaaday askar booliisa oo ka socota ay soo direen safaaradda Soomaaliya ku taal dalka Maleeshiya meesha markaas askarta imaadeen waxay ka bilaabeen qalaaso yar ay ka sameeyeen indhihii soo istaageen balse nasiib wanaag gudaha mise soo gelin haddana waxaan joogaa goobtii ay ka dhacaysay hoolkii aan joogaa waqtigan xaadirka aan ila hadlayo already cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu aaday u baxay oo wuxuu ka tegay meesha gaarigiisu raacay already waa tegay goobtii hoolkii ilaa hadda waxaa ku sugan askar ka socota safaaradda Soomaaliya oo ay soo dirtay askartaasna ilaa hadda maanan yani waxay qabteen ama waxay sameeyeen ma jirto waxaana joogaa ilaa hadda meeshii xaalku hadda aad u yahay balse waxaa la yaab aad iyo aad la yaab noogu noqotay maadaama qof musharaxa oo madaxweyne u tartamaya gudihii waddanka lagu soo calqaladeeyey shirkiisii maaragtay markii hore laga soo gudiyey haddana looga daba imaanayo waddamada shisheeye ee bannaanka dalka taas waa arrin aad u fool xun waana arrin ka jirta maaragtay lagu kursanayo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee raba inay u soo tartamaan madaxtinimada dalka Soomaaliya qof kastoo muwaadin wuxuu samayn karaa uu noqon karaa madaxweyne uu qabsan karaa uu soo tartami karaa waa xaq iyo xuquuq uu leeyahay qof kastoo muwaadin qof kastana ma ahan inuu kugu raaco ra'yiga adiga aad rabtid ama sida adiga aad rabtid inuu u socdo ma ahan dowladda Soomaaliya haddii ay musharaxan aragtay inuusan afkaarta ay iyaga leeyihiin uu ka duwan yahay inay haddana saan uga hadlaan intaas soo gudbinaysa